على رسول الله wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha iyo taliyayaashooda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda culimadeenna sharafta leh halkan joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waa xilli kulul oo rabo inaan aniguna war badan sheego. Waxaan maanta runtii sidaa la sheegay culimadu sheegtay bishaaro u ah ummadda Soomaaliyeed in aan dhagax dhigayno daar aan isleeyahay wax badan bay ka bedeli doontaa Soomaalida. Daar aan isleeyahay meelihii wixii loogu baahnaa runtii dadka Soomaaliyeed mashaariicda ugu baahnaayeen ay ka mid tahay daarta aan u bixinay Daarul Fatwa. dadka Soomaaliyeed dad muslimiin ah waa dad jecel diintooda islaamka. Culimada Soomaaliyeedna waa culimo taariikh dheer leh oo diintan keligood ayagu usoo harjadayay, soo waday, soo fidinayay geeska Afrika oo dhan ku fidinayay. Soomaali keliya maaha, muddo dheer ayaga oo aan wax kaalmo ah aan ka helin dowladdii Soomaaliyeed ee lixdameeyadii la dhisay. Waxay ahayd in dalka iyo diinta iyo dadka oo intaas oo muhiim isu ah aynu isku maamulanno. Laakiin sidaad ogtihiin maadaama aynu dhaxalnay nidaam European ah oo waddanka ka jiray, dadka Soomaaliyeed dowlad saas isugu xiran ma aysan dhaxlin, loomana keenin. Marka waxaad moodaysay inay si uu dagaal uga dhexeeyo dowladnimadii iyo diintii dadku ay lahaayeen ee diinta islaamka ahayd. Waxaa marka taas soo ifbaxday in aysan isku furnayn si weyn culimadii oo diinta dee bays u ahayd, oo geela kuwa raacaya qur-aanka u dhigayay, kuwa meelaha fafog ka daba tegayay, dadka ku heshiisiinayay, isku dhex waday ummadda, ku hogaaminayay oo hoggaan ahaa. iyo dowladdii casriga ahayd ee timid waxoogaa waxaad mooday in aysan si fiican isula jaan qaadin, taasoo markii dambe kusoo gabagabowday in dee maantoo kale culimadii Soomaaliyeed magaaladan la laayo maalintaas oo la yidhaahdo waa maalintii ay Soomaaliya balanbalka iyo dhibaatadu iyo silicu u bilowday. Runtii waxaan rajaynayaa maanta oo aan halkan ka furayno Daarul Fatwa oo culimadii Soomaaliyeedna ay nala joogaan, at least inay inoo noqoto tawbo aan kasoo toobadkeenayno, weliba qaranku ka toobadkeenayo wixii gacan qaran lagu geystay ee dhib ah. Marka ilaahay haynaga aqbalo. waxaanan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu mashruucan inoo hirgeliyo. Mashruucan wuxuu saldhig u yahay ama asaas u yahay majliskii weynaa culimada sare ee dalkan arrimaha diinta ku hogaamin lahaa, ee dadkan midnimadooda ka shaqayn lahaa. midnimada ummadda waxaa baysku u ah inay yihiin dad muslimiina kulligood oo wada sunniyiina oo wada shawaafica madhabka. marka waxay u baahan yihiin in sidaa la isugu ilaaliyo. kala duwanaanshaha dee madaahibta fiqiga ahi waa wax jira weeye, tarjiixaadka culimadu waa wax jira weeye, laakiin waxyaabahaasi inay ku harto dadka ahlulcilmiga iyagu lafahooda iyo aragtida ay qabaan naftooda ku dabaqay. Laakiin bulshada markii ay fatwo timaado waxaa fiican in ay hal dariiqa. bulshadu waa muqallidiin, dad ma aha ayagu wax kala doordooran kara, wax kala rajixi kara ma aha. laakiin inay noqoto bulsho hal mid culimadu hal meel ay u wadaan oo hal dhinac ay ku hogaamiyaan, oo aan dhexdooda confusion iyo qaala wuxuu yidhi wa sheekh wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi aan lagu wareerin, because hebel wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qiila waxaasoo dhan ma garanayaan dadku. marka waxay u baahan yihiin hal fatwo inay helaan ay u baahan yihiin. hadda ka horaa anigoo waddanka markaas xoogaa ka maqnaa waxaan imid 2010. marka idaacadda Ramadaan bay ahayd, waxaan dhegaystay
oon dhegaysan jiray barnaamij ka bixi jiray idaacadda muqdisho marka waxaa fatwoon jiray oo midba mar la keeni jiray nin culimaa oo aan filayo inuu daraja doctoraa gaaray iyo sheekh cali dheerehena marka waxaan runtii aad uga heli jiray waxaan isweydiin jiray siday u kala duwan yihiin labada sheekh labaduba laba nin oo caalimiina wey laakiin ninna wuxuu rabaa inuu afarta madhab ku fatwoodo ninna wuxuu rabaa inuu hal fiqi oo la yidhaahdo fiqi shaafici inuu ku fatwoodo marka markii su'aal la weydiiyo sheekh cali hal marba wuxuu dhahayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa sheekha kale marka su'aal la weydiiyo waxaa waaye kitaabkiisu la kala baxay wuxuu leeyahay sidaasna waa sidaasna hebel baa yidhi sidaana dadkii marka caamadaha ayagoo confused ah oo say wax u kala doortaan aan la garanayn meelay kay ka qaataan ma kanay qaataan mise kanay ka qaataan mise kanay ka qaataan bay ka dhex baxaya marka inuu arday jaamacadeed wax u dhigayo ayaad moodaa laakiin dad caamo ah inuu wax u sheegayo lama moodayo marka aad baad u garanaysaan baahida aynu u qabno runtii inay culimmadu isu timaado arrintaa waxaan isleeyahay waddankan iyo dalkan iyo dadkan iskuuladiisa iyo diinta horumarinteeda ayay qayb weyn ka tahay waddamadoo dhan baa leh kuwa xataa jaaliyadaha islaamka ku nool yihiin een ayagu muslimiin ahayn ku magacawnayn ayaa laakiin innagu inaan yeelan weyno runtii waa dib u dhac iyo takhalluf nagu dhacay weeye maanta ayaynu insha allah kasoo qabanaynaa waan amaanayaa culimada aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay iyagu iskood u wadaan ay isugu yimaadeen ay ku sameeyeen maxaan ku dhahaa madallooyinka iyo maxaan ku dhahaa guddiyada gaargaarka ah markii dambena isugu yimaadeen majliska culimada ay ku leeyihiin haddii aysan ayagu jiri lahaynna injaazaadkii faraha badnaa hadda laga soo sheekeeyey runtii lama qabteen maanta waa maalin wanaagsan daartan inaga dambaysa sawirkeeda oo qurux badan baan rajaynaya inaan furno haddii la yidhaahdo waqti aan dheerayn waxaa guul kala ah runtii haddii ay wasaarad ahayd haddii ay macad ahayd iyo haddii ay hadda tahay daartan weyn oo daardhifto ah in ay wasaaraddu un samaynayso xukuumaddu un samaynayso cid ku gargaar ku siinayso iyo cid ay kaga rabto midna ma jirto hal shilin oo meel kale